mid ahaa yaa mayleedahay hanjeediye runtii bulshadana walageega haysada wal oo si sahlan lagu bii karo hooba daacadda kunagada in bulshadaas la hormariyo laakiin hooba shilinkii iyo leyn ilakasa safara hoo mayleedahay jagadii habata lanko ilmo adeer iyo lanko kale hel eleelasi hoo daacadda ninagan in deegaanadii la seeda la hormariyo kii go'doonka jara go'doonka lagu saar kii mayleedahay xorriyad qaboon horumar lan suubi eediyada muhiim ata walyaalo oo ku xumaado ay kumid ah jidka baydhabo ee xamar leh tusaale ahaan marka laan qaado oo hadda arrintiis teegan 241 kilomitir waay 80skii jidkaas saddex saac laga seeda jaray baydhabo ee xamar travel time taas qaadi jaray geega aragden inta waqti inta la qaade jidkaas in la maro 31 isbaar iyo taalo jidkaas 31 isbaaradaas qaar kumid ah maamul koonfur galbeed isku leh waay dadka isbaarineen dhikata waa maamulkii bab haysteen waay hal isbaar amni sugaas mijart kulli shay waxa cash ka wala rawaay yani lacag leelka aruursay maahane wal amni laga talgal mijar baawrkii oo meelaha maro ilaa $7,000 $6,000 ilaa $8,000 la inkshay oo baawrka oo traag ah oo meel raay xamuul ah oo ku kooyo bakaara ilaa ay baydhabo imagine marka lacagtaas ay dhiiboy masaakintii hadana sicir bar ahaan yani oo dhiibay hadana marka walaal ahaan hoob aan suubin hay'ado amniga ada si oo rasmeenin isna oo deegaanada dhanba deegaanka sab amni shis isku filnaada lahay aan suubin yani hadhoodi ma erakorta deegaanada go'doonka jaran leen isku ero macna musuubiyaas aaway ciidamadii lan tababar shabeelada hoose aaway ciidamadii oo bakool yani oo tiyeeglo lan tababar aaway inta ka damboyaan way iswarsaday amara ka tababar ciidamadii shabeelada hoose qoriyaal aakeelan waa la kaleey qori aakintilnin waanan way ogi haani tiyeeglo tababaray waliga go'doonka way meel raay korsaarka iyo xadurka iyo ma baahin taakuleen oo military la baahin deegaanada xoreysan marka deegaanadaas ma hinjeegsan in la xoreey la xisaabtan ma bijrab qodobkan dambigan kala goobay way tahan la xisaabtan ama kooyay xisaabtan way kooyay marka qofka mas'uulka ah yani bulshada doorto laakiin hoob lanka sidii baarshuud han korrey lagu sheena lanka hasin dooran leer lankaas ma la xisaabtan korto soo ma aaminsanba in uu ada xaqalata in ada kala xisaabtanta marka wali eed meel raay anjeedeen bulshada koonfur galbeed way leeyahay korka ka jirta leeyahay in dadna isku weydiin horta wal diidu kor la arag hadda walaan ku wiino dadka hor yaa walaal ahaan maamulka waqtiga dhamaadi waqti laga darayna gabagaboway marka horta in la hela hoggaan oo dadka fadaa in la helo sahlan kale in la ero dadka xamar noo shilin sheeno ama meelo kale nin sheeno ay noo dhaafo dankii wal fadaa ka surmoy dadkii fursad ay siiyay taasna way la kooyay bulshada markii walaal dimaandiga soo bado hadda arday Puntland doorashooyinka ku dhigeen deegaano badan laakiin hadda way ismaro waayeen way dadkii dad qaar kumid ah walaal diidiyeen Soomaaliland dad kumid ah way diidiyeen qaabka Soomaaliland socod marka bulshada waa la baahan nafsha in ay suurintu arta oo hoggaanka oo fadaan doordaan ka hoggaanka la xisaabtamo karo laakiin hoggaanka oo doorana hadhoodi iyo dhibaatada ka jarmo ku bii karo أستاذ آدم ما سنتين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد آدم فركيتي هرتا أدي يدي أنكي كم هديانا وقتيا أدي ولي وقت ذنب أدي كن أتا وهذا كل وقت هذا هل إرادي أو برنامج كن كلا قيب آتو أدي ما هالسنتا